madaxweyne ugu horeeyay Soomaaliya wuxuu ahaa Aadan Cabdulla Cusmaan madaxweyne labaad wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweyne saddexaad wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre madaxweyne afraad wuxuu ahaa Cali Mahdi Maxamed madaxweyne shanaad wuxuu ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweyne lixaad wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne toddobaad wuxuu ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne sideed wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne u dambeeyay xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka عدي عبد الرشيد محمد سياد بري علي مهدي عبد القاسم عبد القاسم شيخ شريف عبد القاسم waxaa ku xiga عبد الله يوسف الشيخ شريف حسن شيخ فرماجو محمد عبد الرحمن محمد مقعيقة waxaan ku magac dheeray dhagacleen waxaan deganahay xaafadda Kaasa Balbalaare haddii aan sheego madaxweynayaasha soo maray wadanka Soomaaliya waa 10 waxay kala yihiin Aadan Cabdi Shakuur Maxamed Siyaad Barre Cali Mahdi Cabdullaahi Maxamed Qaasim Cabdullaahi Qaasim Cabdullaahi Yuusuf Cabdiqaasim Sheekh Shariif حسن شيخ هذا مدحوينهنا محمد عبد الله فرماجة نيو هرتا أنا واحد بدن كما أقاني لكن هذا أسكت ديو وحيان كحسوستو عيان شيء محمد عبد الله عند محمد سياد بري وحاكو حاجة علي مهدي وحاكو حاجة عبد القاسم عبد الله يوسف شيخ شريف حسن شيخ فرماجو انت سان كحسوستا xogo waa ka sheegi karaa kulmadna isku dayo madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa ku xigay Aadan Cabde waxa ku xigay Maxamed Siyaad Barre waxa ku xigay Cali Mahdi Maxamed waxa ku xigay Cabdiqaasim waxa ku xigay Cabdiqaasim waxa ku xigay Cabdullaahi Yuusuf waxa ku xigay Sheekh Shariif Sheekh Shariif waxa ku xigay Xasan Sheekh waxa ku xigay Farmaajo kulba sidaas oo kulba ilaa hadda aniga waan mahadsantiin Aadan Cabdulla Cusmaan Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Siyaad Barre Cali Mahdi Cabdiqaasim Salaad Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walaal madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliya magaciisa ma garanayo walaal iskuulkii ay waqtidaas la soo bari lahaa yani waxa laga yaabaa saacada inaan ka jawaabo in qofka bini'aadanka ah in uu haduu rabo jiritaankiisa waa in uu muujiyaa asaga wuxuu u yahay hadii uu soo bandhigo asaga wuxuu yahay jaamacadaha ama iskuulada ay soo bandhigaan taariikhda Soomaaliyeed waxay tahay waxa u sahlanaanayso ardayga Soomaaliyeed ama jaamiciga Soomaaliyeed in uu wax ka fahmo taariikhdiisa ama uu dareemo wadaniyada waxa ay tahay tusaale ahaan hadda iskuulaadka waxa lagu dhigaa markii ardayga uu iskuul soo dhiganayo waxa la taariikhdiisa iyo casharada loogu dhigo sababta hadda anaga waxaan sameeynaa dalkeena taariikh ahaan ardayda ugu dhignaa Talyaaniga camal Faransiiska camal Ingiriiska camal meelaha ay qabsadeen waxaas wax macnaa noogu ma jira waxaan yani dan noogu jirta inuu jiilka barto taariikhda wadankiisa uu soo maray yani jiilka yar waxaan jeclaan lahaa inay akhristaan madaxweynayaashii soo maray wadanka heerarka ay soo mareen marxaladaha ay soo mareen inay ka bogtaan ay ka akhristaan taariikhda Soomaaliya sidaas ay ugu bogaadin lahayd هلا ومرحبا بكم kusoo dhawaada dukaanka caanka ee Lilis Furniture Design bishan August hadii saaxiibada ama asxaabtaadu ay gataan alaabta fadhiga ee guriga ama jiifkaba adigu waxaad helaysaa miis wax badan oo free ah yes saaxiibka keen dukaanka Lilis Furniture marka uu alaabta gato waxa adiguna helaysaa miiska quruxda badan ee sade oo qiimihiisu yahay 500 pound